muqdisho maxaa ka socdo waa sidee hanaanka doorasho ee 2021 musharaxiinta shirka ugu socda magaalada muqdisho maxaa laga filayaa kulanka kheyri cabdiraxmaan cabdishakuur muxuu ka dhigan yahay maxaa laga dareemayaa caasimada Soomaaliya inta aan warbixintan gudan galin fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalkayga Maxamuud Milaano fadlan subscribe dhahowna furo gambaleelka si aad ugula socoto warbixinadan iyo kuwa kale halkan ku soo gudbiyo waad ku mahadsan tahay dhageysigaaga toddobaadkan waxaa toos u bilaabmay ololaha doorashada 2021 waxaana magaalada muqdisho laga dareemayaa jawi doorasho kulamo xasaasi ah iyo isgarabsi siyaasadeed waxaa magaalada jimcihii dib ugu laabtay musharaxiinta kala ah ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre madaxweynihii hore Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed wasiirka hore wasaaradda warfaafinta Daahir Maxamuud Geele musharaxa ugu saameynta badan dhanka mucaaradka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dowladu siyaasadeed iyo hanaana looga baran sidii hore ayaa muqdisho uu ku soo bandhigay Kheyre iyo musharaxiinta kaleba waxaa dhowr su'aalo dul saaran yihiin kulankii dhexmaray cabdiraxmaan cabdishakuur iyo Xasan Cali Kheyre maxaa xilligan soo beegay inuu cafis ka dalbado 17 Diseembar 2017 weerarkii guriga siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur lagu qaaday maxaa diiday inta xafiisku uu joogo Kheyre inuu cafis dalbado Xasan Cali Kheyre kaliya ayaa lahaa mas'uuliyadda weerarka mase dawladda ayaa wadajir u fulisay cabdiraxmaan cabdishakuur ma loo balan qaaday inuu Kheyre bixinayo magdhow marxuumiinta dhibku uu gaaray dhammaan waa su'aalaad kulankooda dul saar una baahan inay ifiyaan labada dhinac maxaa diiday kulankooda in warbaahinta loogu yeero si suxufiyiintu u helaan fursad su'aalo weydiin ah si xaqiiqada loo ogaado mise waa isgarab qabsi siyaasadeed oo hore aan loo shaacin musharaxiinta isbedel doonka ayaa kulamo uga socda magaalada muqdisho iyadoo midka kale uu rabo inuu ka hanto kursiga sidoo 4 sano soo socoto u maamulo Soomaaliya balse duulaankooda ayaa in farmaajo xafiisku macsalaameeyo iyo dooda ku aadan guddiga doorashada u badan saraakiil ka tirsanay sida iyagu sheegeen dhawaan taasina uu arkaan mid caqabad ku noqonaysa hamigooda siyaasadeed una fududeynayso madaxweynaha waqtigiisu dhamaadka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu mar kale hanto kursiga doorashada 2021 way ka duwan tahay doorashooyinkii hore muqdishona waxay wajahaysaa xaalad cakiran waxayna shacabka ka baqanayaan in lagu dul dagaalamo maadaama xanaftii ereyada kuleel siyaasiyiinta isku adeegsadaan ee keeni karta mid gacan ka hadal dhalisa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan iyo xafiiska markuu la wareegay loogama baran tanaasulaan siyaasadeed iyo mid ku dhisan tala wadaag si loo sii amba qaado hanaanka geediguurka siyaasadeed iyo qorshaha ka gudbidda xaaladda adag uu dalku wajahayo dhanka kale siyaasiyiinta mucaaradka ayaa aaminsan inuu madaxweyne Farmaajo yahay mid aad balanta u buriya taasina waxay muujinaysaa isfaham daro aad u balaaran inay u dhaxayso fila Soomaaliya iyo mucaaradka marka la gaaro maalmaha doorashada magaalada muqdisho ayaa noqota musharaxiin isdaba orda hoteelo wada camiran shahaadooyin isla garab yaaco xilal wada balan qaadan baabuur qoryo isku taagtaago boorar isgarab tixan lacago boorsooyin lagu sida Itoobiya wadata Yuruba taageersan Ameerika soo dirsatay sirdoonka Ingiriiska ayuu garab ka helayaa dalaalkii Qatar khamiiskii Dubai tusbixii Sacuudiga ookiyaalihii Turkiga koobigii Shiinaha waa wada siyaasiyiin wada musharaxa iyo hal kursi 2021 waa doorashada ugu saameynta badan oo qof walba oo Soomaaliya indhaha ku hayo xaaladdu waa allow sahal allow uu bixi way irmaan tahay warbixintan waxa idin soo jeedinaya anigoo Maxamuud Sheekh Cumar Milaano waxaadna ka dhageysataan warbixinadan iyo kuwa kale barteeda gaarka ee YouTube-ka Maxamuud Milaano official haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe dhaho una furo gambaleelka si aad ugula socoto warbixinada dunida iyo Soomaalida ku saabsan waana mahadsantihiin dhageysigiina Soomaaliya nabad tan iyo kulan dambo